dawladda khasaareen kama warhayso waxay aragtay bay sheegi kartaa ma fahanti marka waxa ay iska samaystay waay dawladna ay diin salbalaar iyo afalaar tuu dhaadii maxaa u dhaadii afka ma qabanaay miya ma cabsanaysa waa ciidankii daacaddu waxa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee maalmo ka hor weerarka ku qaaday magaalada Baydhabo iyagoo sheegay inay guul ka gaareen dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo sidoo kale waxay ku hanjabeen inay mar kale la wareegi doonaan gudaha magaaladaasi iyagoo guul ka sheegtay dagaalkaasi waxayna sheegeen in hub iyo gaadiid fara badan ay la wareegeen waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeysay iyo hanjabaadda ka soo baxaysa ciidamadii taabacsanaa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku asaysan tahay 1da bisha Julaay ee sanada 2026 haddii aynu ku bilowno ciidamadii daacaddu ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ee ku sugnaa duleedka magaalada Baydhabo ayaa mar kale waxay ku hanjabeen inay la wareegi doonaan magaalada Baydhabo waxayna sheegeen inay ka hortagi doonaan doorashada ku shubashada ay sheegeen inuu Xasan Sheekh Maxamuud iyo markaasi kooxdiisu ay ka wado magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamadan oo dib looga saaray magaalada Baydhabo ayaa iyagu waxay wareysi ay siiyeen markaasi BBC-da waxay ku sheegeen in markaasi xeelad dagaal ay kaga baxeen magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna sheegeen inay mar kale dib u wareegi doonaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidankan oo markaasi horkacayo afayeenka maamulkaasi ugaas Xasan Cabdi Maxamed ayaana waxay sheegeen inay markaasi gabi ahaanba ay doonayaan inay la wareegaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Koonfur Galbeed oo ah meesha ay markaasi ugu weyn siyaasadda Soomaaliya ayaa dawladdu waxay doonaysaa inay ka qabato doorashada qof iyo codka ee markaasi golaha wakiilada iyo tan madaxweynaha maamulkaasi iyadoo doorashada lagu heshiiyay oo hab markaasi sanduuqa loo coday doono oo cid waliba markaasi ay doonayso inay ku soo baxdo doorashadaasi hasaatee ciidamadii daacaddu ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxay doonayaan inay markaan carqaladeeyaan doorashada ka socota magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhawaan ayay markaasi weerar ku qaadeen magaalada Baydhabo ee xarunta meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hasaatee dawladda dib kaga saartay ciidamo fara badan waxay geysay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dawladdu waxay sheegtay inay markaasi farxadka ay ku raajogto maleeshiyaadkii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen hasaatee ciidankii Laftagareen ayaa iyaguna dhankooda waxay soo saareen inay markaasi ay guul ka gaareen dagaalkii ay la galeen ciidamada dawladda ama maleeshiyaadkii soo weeraray waa markaasi Koonfur Galbeed waxayna sheegeen inay markaasi dib u la wareegi doonaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee gacantooda ka maqan midba midka kale ayuu hanjabaad u dirayaa wali xaaladda Baydhabo ay qasan tahay lama oga markaasi halka ay ku dabay doonto hasaatee dawladda ayaa waray markaasi soo saartay xalay wax lagu heshiiyay in doorashada markaasi lagu heshiiyo oo qab sanduuqa loo codeeyo gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Nuur Aadan Madoobe oo dawladdu wado ayaana markaasi waxa uu kulamo ka wada magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Sakiin ayaa musharaxa dhanka mucaaradka ka socday ugu cadcad doorashadan dawladdu maara ay u leedahay qaab kasta ay ku hor istaagto Shariif Sakiin oo ah madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna doonaysaa inay doorashadan ay markaasi ka hor istaagto hasaatee Shariif Sakiin oo ah musharax aad u weyn ayaa markaasi waxa uu doonayaa inuu ku biiro ama uu ku guuleysto kursiga ugu sareeya ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya balse dawladdu way ka cagajiidaysaa arrintaasi ciidamadii Laftagareen ayaana digniintii ugu dambeysay soo saaray iyagoo doonaya inay la wareegaan gudaha magaalada Baydhabo haddaba waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan aad baad u mahadsantihiin